iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay abaar baahsan ay ka jiraan deegaano ka mid ah Somaliland ayaa waxay abaartaasi saameyn weyn ku keentay arday tiro badan oo wax ka baran jirtay dugsiyada hoose dhexe sare ee ku yaala deegaano ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac ayaa ka hadlay deegaanada ay sida xun abaartu u garaafatay isla markaana ay xirmeen iskuuladii deegaanadaasi. Wuxuuna u sheegay in abaartan ay tahay mid saameyn weyn ku keentay ardaydii wax ka baran jirtay iskuulada ku yaala gobolka Togdheer. ku saabsan sida inayna warbixin ku saabsan sida maanta xaaladda dugsiyada ka baxsan magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco ay ku sugan yihiin. dugsiyadaas oo dhan 82 dugsi oo ka baxsan magaalada gudaheeda. waxaa jirta in markii hore ay xirmeen dhowr iyo 20 dugsi oo abaartu saamaysay. iminka teeramkii dambe dib loogu soo noqday teeramkii labaad ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 waxaa jirta in kuwa kalena xidhmeen, kuwa furanina qarka u saarayeen inay xidhmaan sababtoo ah abaartii baa si daba dheeraatay, biyo la'aan, raashin la'aan, dadkii oo hadduu doono sida aan xogta inuu ku hayno dee goobo ku ururayaba. marka reerkii markii hore ismaamulayay markii uu noqdo inuu goob dadka lagu ururinayo uu tago, xaaladii markaa uu ismaamuli jiro dhamid farahay ka baxaysaa. sidaa awgeed inkastoo weli ay dugsiyo fiican oo weli hawshoodii sidii uu wata insha Allah aan rajaynayna inay sidaa ku dhamaystaan ay jiraan, haddana cabsideeday leedahay. ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa inuu inaga jabiyo abaartaas. waxaan se u soo jeedin lahaa guddiyada abaaraha kala heer qaran, heer gobol, in lagu daro wax raashin hadday noqoto iyo hadday biyo noqoto qorshaha dugsiyada in lagu daro. sababtoo ah dugsiyada qaar baa waxay leeyihiin feeding, kuwaasoo kale boodooda oo daraaga u samaysan, taangiya booyada qaadaya u samaysan. haddii bood loo shubo waxay ku soconayaan muddo, caruurtiina loogu karin karo wixii yaraa ee u yiilay raashin ahaa, lafahoodana ay u cabbaan. laakiin qaylada ama u badan ee hadda nagu soo dhacdaa waxa weeye biyo la'aan gaara oo haysata dugsigii. markaanu nahno dee degmadun baa la qabtaanoo qorshaha degmada ayaa wax ku leedihiinna waxba kama hayno ayuunbay jawaab nooga dhigayaan. markaa qolada abaaraha, guddiyada abaaraha kala duwan ee heer qaran leh, ee heer gobol leh, ee heer degme leh, in ay hoos u eegaan dowladda ka taagan ee dhabtaha goob walba oo abaartu saamaysay. abaartuna sida aynu ka warqabno waxay ugu xun tahay Togdheer iyo wixii ka bariyeeya ayuunbay ku sii habsatay oo hadda xaalad aad u adag ku jirta. sidaa awgeed dee iskuuladuna ama dugsiyadu iyo waxbarashadiina dee xaaladaasay la qabtaa ee wax gaara kagama duwana. hase ahaatee dee hoos u dhac baa ku imanaya iyo qaarkooda iminka aan ka baqayno in imtixaanka ay noo gaadhiba waayaan in ay imtixaanka dhammaystaan sanad dugsiyeedka. sidaa awgeed in markaas sidaa xaaladdu masalan markaad xagga laamiga oo kale inaaf madoobe, qoryaale, warcibraan, shashacade, taalabuur, galidhiig ilaa cali ciise iyo harada iyo sidaa u soconaysa. kuwaasaa ugu xoogan. markooda horebana waa dugsiyada ugu tayada badan ee fahansan waxbarashadu waxay tahay. markaa dadweynahooda xoogga saara sidii iskuulkooda ugu socon lahaa oo biyo gaara u shuba. Sidaam cali markad TV-ga caalamiga ee Somali News magaalada Burco.